anagoo beesha ciise waxaan ileenahay nin waalan walaalkii baa qabtee diyaar baan inahay inaan qabanno hadid wax loo adkaysan kara maaha haddii ilaahay yiraahdo reerkana gaarsiiyo waa nii soo soconnaa anagoo u shayidii sidana waanu ilayn doonaa wixii idab darar badhasaabkii hore gobolka Salal Maxamed Muuse Bucul Booni iyo sidoo kale xogayihii hore dawladda hoose degmada Siilac Bashiir Cilmi Waabari iyo qaar kamid ah waxgaradka odayaasha oo maanta shir jiraad ku qabtay xarunta degmada Siilac ayaa waxa ay baaq nabadeed u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale labada xisbi qaran wadani iyo ucud iyagoona ugu baaqay inay dajiyaan khilaafka siyaasadeed ee hareeyay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna ay ku soo dabaalaan wada hadal iyo sidoo kale isku tanaasul waxaana hadaladoodii ka mid ahayd sida tan annagoo ku sugan xarunta gobolka Salal ee Siilac isla markaana ku hadlayna magaca beesha reer Salal waxaan halkan shirkan jaraa'id ugu qabanay inaanu ka hadalno arrimaha khilaafka siyaasadeed ee hareeyay dalka oo maalmahan dambe cirka isku shareeray khilaafkaasi waxa uu ku salaysan yahay waa la og yahay laakiin saxalintiisa waxaan u malaynayaa ciddii iska lahayd in haddii cid badan ay hareeraha ka gashay oo ayna khuseen arrimahaas dadka waxaan u kala qaadaynaa dhowr qaybood midda ugu horeysa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne dalkan adaa mas'uulka ah ummaduna aday ku dooratay khilaaf kasta oo yimaadana dawadiisa adaa laga rabaa adaa gacanta ku haya 90% adiga leh inaad xalliso 90% adiga leh inaad xalliso ilaahayna ku garab galay waa inaad xallisaa waa inaad dabacsanaan muujisaa madaxweyne waa inaad gogasha ballaarisaa dadku hadday ka cararaan ku maqi waa inaad ka daba tagtaa waa inaad gogasha la daba socoto arrimaha qaarkood waxyaalahan la isku soo xoqanayay waligood buu jiri jireen muddo kordhis wuu jiri jiray raggan mucaaradkina waqti inta goore muddo kordhis ku dhacay way joogeen haddana de waxa dawaysanayay oo hogaysanayay ninkii talada gacanta ku hayay kolka wax doonay wayna dhici jirtay muddo kordhintu iminka haddaad muraad leedahayna sidii aad u hogaysanaysa Faysal iyo Ciro dee aday ku taala laakiin ha is adkayna isdabci oo ragga u fidi garabkaaga soo dhawa xeelad kasta oo ku baqteen karto iyagana ku bogsiin karta adna muraadkaaga ku heli kartana samee intaasi waa madaxweynaha ragga xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay ragga xisbiyada ee mucaaradka waxaan leenahay kolkaad rasaas iyo qoryo iyo dab soo qaadatiin ay bulshada isku qaraxdo ay gacmaha iskula tagto maxaad xukumi doontiin dalkaad xukumaysiin waa ka ilaa wixii aad ku socoteenba madaxaad isku gelisay dalkiina fooda ka dhalatay maxaad xukumi doontiin dee guryaha burburay dhagax ilaahayna ma burburiye ma burburkaad xukumi doontiin inagana waxaan ilaahay gogasho ku soo noqda dabacsanaan muujiya falalkan qabiilaysaneed beelaha ee beelaysaneed ku baaqaysiin la joojiyaan leenahay wax la inaga yeelay maaha dalka la xajeclaan ka qabnaa dadkii u soo dhintay ee hanti iyo maalba u soo horay baanu nahay anagu beeshiisa Salal ee qax iyo wax walba butaystay waxa kale oo rabaa inaan la hadlo garabyada gelinka soo baxay ee raggii mujaahidiinta ahaa ee magaca lahaa ee dalkan soo xoreeyay ee dhiigooga iyo dheecaankooga u horay ummadaasi maanta ku huruda ee calankaasina ku taagan yahay waxaad ku fiicnaydeen ama aad gaajootid ama aad gidaar jiiftid ama aad masaajid ku jirtid adeerow sidii horaad ku qurux badnayd mujaahidiintay magaca mujaahidnimadana hadilina magaca SNM hadilina SNM annaga ah oo in qabanayna SNM hadday qaybi waato qaybta fayow baa qaban waxaan leenahay xusiyad bar dalkii waa laga xoreeyay dawladii faqashtii way dhacday waa taa xornimo la helay dee ma garanayaan uu kacdoonka kale SNM soo kicisay imika SNM tan kale soo kacday cid ay dalka ka xoreynayso ma garanayno aynagana waxaan leenahay sharaftiin iyo mujaahidnimadiina ku ekaada madax dhaqameedka iyo dadka hoggaanka dhaqanka waxaan leenahay ee imika koofiyadaha u soo xidhay reer hebel iyo habarta yiri
war waxaan habar la yidhahday waddankan loogama baahna waddanku waa ummadda reer somalilan waa qaran maanta waa qaran haddeed marxaladdii u dambaysay sallaanka xabaddii u dambaysay ka dhaadhacaysa somalilan hadday ictiraaf tahay hadday horumar tahayba ha nugu celinina waxaas madax dhaqameedadana waxaan leenahay arrimihiinna ku ekaada dhaqanka ha ku milmina siyaasaddaan leenahay ha ku milmina siyaasadda qayb cidda kale waxay tahay waa beesha reer sheekh isxaaq annagoon kala reebaynba waxaa la yidhi nin hadduu faydfayto tolkiibaa u fayow baa la yidhi war beryahan faydfaydashaan niga arkaynaa wajaqaad soo wadiin wajaqaha joojiya dalka waan inila leenahay lix jeclaa jirta weliba annagu walaalahaan beeshii inuugu dhoweyd baan nahay ee halgan iyo annagoo beesha salel ah ama beesha ciise annagoo beesha ciisa waxaani leenahay nin waalan walaalkiibaa qabtee diyaar baan nin lahay inaani qabanna haddiid wax loo adkaysan kara maaha haddii ilaahay yidhahda reerkanina gaadhsiiya waa nii soo soconnaa annagoo u shayadii sidana waanu ilayn doonnaa wixii edab daran haddii dalkeennu maanta waxaan maraynaa meesha meel ugu fiican baan maraynaa dib haynoo celinna dadkan ku hanjabaya reer hebel baa meel heblaaya ka imanaya reer hebel baa meel heblaaya ka imanaya maya waar meesha waan idila leenay waan idila dhiman waan idila rogman waan idila noolaan har maanta oo aan leenahay midhihii wax yar baa ka hadhay hanaga daaya ha rogina meesha afkiinu iyo adinkiinuna ha ismaqlo dee beeshaa reabtigan baa ku waalaayo reer bin axmedow aad baad u hahadlayseeni war dalkan iyo dadkan waan idinla leenahay naga rogina walaalahayo dadkeennaa koonfurta magaalada gobolka baydhabo iyo la yidhahdaa waxay ku mahmaahan adduunyo ajabtiye ibaara naasgaabtiye aadaa jinkaa aroosaa ku tusayaas waa u dhiganta qoladan xamarna waxay yidhaahdaan cimrigaaga oo raageel dhaloo ku tusaa war shalay annagoo maanta u joogna dhibkii nagu dhacay ee u qaxootiyowno 30 kun oo qaxootiyo jamhuuriyadda Jabuuti aynu qaabishay maanta ku soo noqonnay dalkii haddana dagaal kaloo labaad runtii ma filayn dee horumar baan filaynay horaan u socnaan lahayn dib inaan u soo noqonno maaha walaalay horaa loo socdaa waxa weeyaan mucaaradow adna xeer wax ku doon madaxweynow adna xeerkii mari annaga xeer baan leenahay dhaqan baan leenahay dee walaalna waan mar horena la yiro noo sheegay dee walaalnimadii baan idinla soo socnaayo xeerkaa inaan idinku kala gurno hadduu ilaahay haddaad deenna ku qancaysan noogashihiin bilcaalamiin sida ay waqaasha iga horeysay aqladu ay yidhaaheen weyn hadalka intiisii badneed waa la yidhi maanta anigu waxaan ka hadlayaa kelmadaydu waxay ku socotaa waa mucaaradka siiri baan afuufaynaa waxbaan duminaynaa war dalkan maanta meel wax laga dumiyo ma joogo meel fiican buu joogaa meel wanaagsan buu joogaa nabad baan maanta haynaa doorashadan way iska dhici doontaa goor ay dhacdaba waxa weeye nabadda iyo xasiloonida waa in la ilaaliyo dadkii waa heenba maanta naga gubtoo soo qawadan oo taladooda maanta aan ku jirnaa oo maanta si loo qaban lahayo abaar baa jirto maantadii la hadli lahaaba maahan doorashaduna kulley goor dhow iyo goor dheer waxay dhacdo nabad bay ku dhici doontaa war siiri iyo la soo kacay dalku maanta kuma wanaagsan war mucaaradow war nabad wax ku doona nabad wax ka wanaagsani ma jirto dabacsanow raggana la fadhiiso waa walaalaha waa ragga dalka kula leh waa ragga maaragtaana xisbiyada ah la fadhiiso la hadal wixii arrin ay kuwala dhammaysateen ku dhammeeyey war waxaan leeyahay dalka nabad ha lagu soo dabaalo war ninkii xeerkaa ka booday yoolaysa dhaqanka dhaafow war arrintaa ninkii diida anu waxaan u malaynayaa arrintiisu inay mala kala tahay khilaafkan siyaasadeed ee ka dhex taagan xukuumadda somalilan iyo sidoo kale xisbiyada qaran ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay waddanka ka jiraan abaaro baahsan iyo sidoo kale sixir barar xarkaha goostay waa cali axmed diiriye cali dhagadlool wararka degmada Saylac.